الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad iyo aad u muhiim u ah. mowduucan ka hadlayno waxaa waaye waa maxay calaamadaha cayn isha. waxaad maqasheen in badan dad dhahayo il marka calaamaday leedahay wax walba calaamay leeyihiin. calaamooyinkeeda waxaa ka mid ah arrimahan soo socda. waxaa ka mid ah murug joogto ah oo sabab la'aan ah. qofka markuu murugsan yahay wax unbuu ku murugsan yahay, laakiin murug sabab la'aan ah. waxaa ka mid ah waxaa la dhaho wadne qaraac, inuu qofka wadnihiisa zaaid u qaraacmo. waxaa ka mid ah qofku inuu mar walba dareemo xilli walba iyo waqti walba ciriiri, asagoo ogeyn ciriirigan meel ka imaanayo. waxaa ka mid ah boodiyaha qaybo ka mid ah in ay mataqaanaaye ay noqdaan cagaar, in laga qanjaruufto camal. dadka alcad baa u badan. waxaa ka mid ah in jirka uu yeesho meelo oo jirka ka mid ah oo in la goostay aad u malaynayso. waxaa ka mid ah qofka hadduu yahay qof maskax badan wax xifdiyo inuu noqdo qof aan wax xifdi karin, firfircoonina aan lahayn, inuu iska jiifo ayuu rabaa. adiga waxaad leedahay cunugii maxaa ku dhacay, gabadhii maxaa ku dhacay, saan ahaan jirtay, warsaan xaaladda ma ahayn, oo qofkan il ayaa asibtay. nabiga sal ll slam wuxuu leeyahay alcaynu xaq, isha waa xaq. qadarta ilaahay haddii wax un ka hormari lahayn la sabaqat ilcayn, isha ka hormari lahayn. qofka mataqaana hadduu yahay qof labis badan, iscatariyo oo is udgiyo, wuxuu dayacayaa jirkiisii, muuqaalkiisii. qofku iska rarafan yahay, timihii hadduu wiil ahaa timihii saliid ma marsanayo. adiga waxaa la dhahaa wuu ishilmaamayaa. waxaa weeye qofka midda kale waxaa weeye qofku inuu yeesho waxba shaqada si fiican uma qaban karo. shaqada haddii loo diro ma sugayo shaqadii. cadamu tarkiiz ilcamal, cadamu tarkiiz ilxifdi. qof wuxuu iska noqonayaa waxba aan tarkiisi karin, haye xifdi la'aan. tii horaan soo sheegna waxay ahayd xifdi ma ahayn taas, waxay ahayd tan waxaa waaye dacfu lxifdi waay. tii horan waxay ahayd xasuus la'aan, dacfu daakira. xasuustii ayaa ka daciifaysa bacda nashaadiha markii ay ahayd firfircoon ka hor. qof wax soo xasuusta oo maasha allah uu ahaa, hadda muxuu noqday dacfu lxifdi, dacfu daakira. haye waxuu qofka ku dhacayo oo ka daciifayo jirku ka daciifaya, jirkiisii, mandarkiisii. waxaa weeye qofku wuu sii baaba'ayaa. waxaa weeye qofka calaamadaha isha ee haysa waxaa lagu arkayaa allah naga najeeye hurdo fara badan ayaad ku arkaysaa. awalna uu ahaa qof in badan aan seexan, qof aan salaad subax markuu tukado aan hurdo ku laabanin, qof dadaal badan. waxaad arkaysaa qofka iska hurdo waa cali hurdaayo noqday. allah naga badbaadiyo. haye tan waa nagu badanta kathratu tathaayub, halaaqada inuu qofku iska halaaqoodo iskaga hayo fi kulli waqti, xilli walba. wafi salaati, salaada markuu jiro iska halaaqoodo. wacinda qiraa'ati alqur'aan, xilliga qur-aanka uu akhrinayo iska halaaqoodo. taas waxay khaas u tahay ahamu acraad alcayn, waa midda ugu daran isha qofka inay hayso. qodobka ugu dambeeyo
isha howlaheedu way fara badan tahay waxaa weeye katratu tathaayub inuu qofka mataqaanaa aad u halaaqooda maca dumuuci qasiira asagoo ilin ay kasoo daadaadanayso ilin ay kasoo daadanayso fara badan athnaa'a qiraa'ati alqur'aan kariim xilliga qur-aanka ilaah uu akhrinayo waxaa ugu dambeeyo inuu qofka aad u xalaaqoodo cinda simaaci ruqya sharciya markuu ruqya sharciya dhigaha gashado wuu halaaqoonayaa kurhu ayuu sheegay ka daraasa walcamal inuu qofka iska naco waxbarashada shaqadaan iga soo booday waxbarashadan goormay dhammaanaysaa waa la eleysta ruuxaas waxaan kuu weeninayaa waa calaamadihii tan waxaan jarribaynay oon tijaabinay wax yar oo adigana wax kuu taraayo wax badanna kaa anfacayo xanuunkaana mataqaanaa aad oga reesanayso isha hadday xaq tahay oo mataqaanaa dadkii ay xasid noqdeen oo waxba la isku ogoleen maxaa lagu weeninayaa qul acuudu birabbi nnaas qul acuudu birabbi lfalaq nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kafataah ruuxa way kaafinayaan way ku kaafinayaanoo shar oo dhan ay kaa kaafinayaan xaasidkay kaa kaafinayaan kafata aayad kursi xilliga aad seexanayso laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir boqolka aqri waa duco aada u wanaagsan xilliga hore inaad salaada tukato ku dadaal waxaad ku dadaashaa in aad soo kacdo gelinka dambe habeenkii ilaahay aad la munaajow ilaahay la munaajow ilaahu caafi لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى إن ويديسو العفو والعافية أيون أمر اللهم إنا نسألك العفو والعافية هذا إلهك عافيه وذنوبت هذا لك عافيه ووحو نكسر هذا إلهك عافينا شقوينك هذه عبادتي يا خيراتك لنبات قوانيسا بل إنت أسبادت بينك نكورهم أن إلهي ويديسن العفو والعافية في الدنيا والآخرة إلى الدنيا أقرب العافية إلهي وإنت حنونك خطرقات إلهي أنت عافيمات وزيادة إلهي حاسدين تربي ورحمن وما دخقوا إلهي سبحانه إلهي هدون هدادوا تلقلنا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبغي منهم أحدا يا قوي يا عزيز قف والباء عين تدخل لبا إلهي سبحانه وتعالى لحسابتهم لأن إلهي سبحانه وتعالى قوموسين إشاس inaad umadiisa ku dhibto maxaa lagaa rabaa haddaad isdareento qofkii haddaad saa u fiirisaa xanuunsaday cunugii aad saa u fiirisaa caanii baa ku dhigay haddaad is aragto wax alla waxaad aragto maasha allah ka hormari maasha allah maasha allah tabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin ilaahay subxaanahu watacaala baa ruuxan qalaqay ruuxa quruxda badan ruuxa caafimaadka badan ruuxa mataqaanaa ilaahay subxaanahu watacaala wuu qaybiyey caafimaadka waa qaybiyey quruxda waa qaybiyey qof walba tiisa ku qanaco marka ruuxan wax la siiya adigana laguma qadanin wax kale lagu siiyey marka waxaa laga rabaa qofka qanaaca xasid la-aan
wanaag. جزاكم الله خير الجزاء. aad u mahadsantihiin. الدال على الخير كفاعله. sii shargareeyo meel dheer sii geeyo walaalaha kala sii gaarsiiyo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.